السلام عليكم صحابي maanta waxaan idin hayaa filin inaba aan caadi ahayn filinkaas waa filin Canada ah Sheesa 2016 la yiraahdaa Sheesa wuxuu soo baxay 2026 ayuu tiyaatarka la soo saaray laakiin Sheesa 2016 la yiraahdaa 2016 la yiraahdaa filin waa filin Canada oo boolis oo ka sheekeynaya musuqmaasuq iyo dilal iyo dad kiisas macnaha qof kale dad lacag leh ay geysteen dhibaato ay geysteen dad masaakiina disha laga saaraya si kiiskooda meesha looga saaro dadkaas loo laayo dad intii disha ay ka saaraan ay doorka keenayaan kadibna way tooganayaan ugu dambeyntii ma taqaanaa waxa ku soo baxaya reerka ay laayeen qaar kamid ah waxa familkooda kamid ah ayaa dib intay u soo laabtaan ayaga dagaal ku soo qaadayo dagaal qaabs farsamo aan caadi ahayn adiga qof odayo masaakiina waxaan ku dhintay soo xiran ay sameynayaan kiisaskii iyo waxyaalo in dish ka saaran ay rabeen xabsiga ayay soo gelinayaan ugu dambeyntii isagii qorshe mar hore wuxuu watayba in booliska xindaabkooda ay iska soo bixin dabkooda lagu weeraro meesha dhab lagu siiyo ma fahamtay wuxuu sameynayaa microphone iyo waxyaalo oo meesha ku meel ku xirxiraya in yaro Jones uu helo macnaha wax laga qorqorayo oo meesha banaanka u fadhiyo xafiiska gudihiisa emaalaha meesha wax lagu qoro OB wax noocaas ugu dambeyntii xabsigiisa la gelinayaa ayagiina hal ayaa loo dilayaa mid taliya la dilayaa mid kale la dilayaa qoorta bay ka wada goynayaan qof waliba qoorta ka goynayaan qaybtiisa dambana waa ay reebanayaan dadku wax saas sameynayaan telefoon bay ka soo waxay leeyihiin qofka inay meeshaas keentaan qofka ugu dambeeyo waxay leeyihiin meeshaas keen adee filinka filin inaba aan caadi ahayn waaye booliska waxaan ku dhahay wuxuu ka hadlayaa booliska oo musuqmaasuqa ku shaqeysto oo laaluushka waxaas qaato ayuu ka hadlayaa filin Canada inaba aan caadi ahayn waaye luqadda Canada ayaa lagu sameeyay waa filinkaas waan la yaabay okay waxaan kaloo maanta aan sheekada idinku hayaa filinka The Devil atoraha keena Dirshan la yiraahdo filmaanta filan badan uu keenay waa taqaaniin waxa la yiraahdaa Ganesh oo taqaaniinka laakiin Dirshan ayaa la yiraahdaa isagana filinkiisa The Devil oo xiraad xoogan la saaray 2024 ayuu ahaa waxa ay dhamaadkiisa inuu filinka gabagabeeyay gadaalii dambena filinka intaan la soo bandhigin bandhigidtiisa iyo posterkiisa bandhigiisa inta lagu jiray ayaa dadkii taageerayaasha ayaa waxay qaraaceen mid kamid ah taageerayaashiisii nin ay si xun u qaraaceen taageerayaashiisa kadibna waa uu dhintay laakiin waxa lagu eedeeyay isaga inuu qaraacay taageerayaashii mid kamid ah uu isaga qaraacay kadibna uu saas ku dhintay kadibna kiiskaas ayaa loo haystay 2024ka aakhirkiis ayaa la xiray ilaa 2025 ilaa hadda waa uu xiran yahay dadka filinka oo maalgeliyay iyo shirkadihii ayaa hadda waxay leeyihiin ninkaas waxaad ku haysaan iyo waxa aad dambi ku haysaan iyo dambi ku hiininba waa inaad soo saartaan maxkamadda aadna ku cadeysaan noo xukun noo saara haddii isaga uu waxaan ku dhahay dhibkan geystay oo cadeen aad u heshaan ma taqaanaa noo xukuma oo qofkan xabsi inuu isaga jiro oo la iska haysto oo cadeen la'aan xukun la'aan oo xabsi isaga jiro wax macquul gal ma ahana yiraahdeen taageerayaashiisa iyo dadkiisa hadda midaas ayaa ilaa hadda la daba taagan yahay filinka The Devilna sidaas ayuuna tiyaatarka uga istaagay wax hadda iibsaday qaatay midna ma jiraan run ahaantii Dirshan wuxuu ku jiraa xaalad adag sidoo kale Vijay Talabati ayaa si rasmi ah hogaamiye cusub u noqday oo waxyaalihii looga baahnaa iyo xukuumaddiisa looga baahnaa saxiixay mideeda kale wuxuu kaloo saxiixay dadka laaluushka qaato ee gobolka Tamil joogo oo booliska ah sida kiisaska waxyaalaha filmaanta lagu keeno waa wax sax ah oo Hindiya ka jiro gobolka Tamilna ka jiro si xooga wali Hindiya kaliya kuma dhahay Tamil waxyaalaha filmaanta lagu keeno oo kiisaska dilalka ah oo dad kale dusha laga saaro laaluushna la qaato waxyaalahaas waa wax sax ah xaqiiqooyin gobolkaas ka jira waa midaas wuxuu u sameeyay dad oo loogu talagalay oo loo carbiyay in macnaha ay baaraan qofkii ay ku arkaan waxyaalo laaluush ama wax noocaasa ama istawmarin inay xafiiskiisa ay ugu yimaadaan qofkii dhibaato loogu geysto xataa in yaro video ama in yaro cadeen inay qofku uu ka soo qabto kadibna ama xafiis kale lama geynayo qofkii cadeen cad ah la yimaado inuu keeno xafiiskiisa isaga uu maamulo intaasna waxay ahayd wararka idin kaga hayno gobolka
taamil iyo dhanka filmaanta iyo atoorayaasha hadda atooraha ku biiray siyaasadda sidoo kaleeto videogan meel fog gaarsiiya asxaabe waa idin salaamaya